aad baad u mahadsantahay ayaan Cabdulle Goore ku soo wada daawadayaal qodobada wararka dibadda oo aan idinkaga soo gudbiyo stuudiyaha labaad ee telefishinka caalamiga S24 xaruntiisa magaalada Muqdisho qodobada wararka dibadda idinku daawan doontaan waxa kamid ah weer loo adeegsaday baabuur walxa qarxa laga soo buuxiyay oo lagu qaaday qasriga madaxtooyada magaalada Cadan ee dalka Yemen iyo soo kale ururka la qeyrta caas oo bilaabay howlgal balaaran oo ku aadan gargaar bini'aadanimo ay ka fidinayaan magaalada Homs ee dalkaasi Suuriya aan ku horeeno weer loo adeegsaday baabuur walxa qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu qaaday qasriga madaxtooyada ee magaalada Cadan ee dalka Yemen la soo wariyay 30 askari oo kuwa ilaalada jamhuuriga ayaa ku geeriyooday weerarkaasi waxaana soo kale ku dhaawacmay askar aad u fara badan inkastoo aan tiras rasmi ah aan la isku waafaqsaneen wariyaasha ku sugan goobta qaraxu ka dhacay gaar ahaan wariye u hadla BBC-da ayaa sheegay in xaaladdu ay cakarantay ciidamaduna iyaga oo adeegsanaya dabaabado waaweyn oo kuwa dagaalka ay bilaabeen inay ku faafaan wadooyinka ku hareereysan qasriga si ay u helaan macluumaad ku aadan cidda weerarkaasi geysatay ciidamada ayaa la arkayay iyaga oo baalayaasha dhaawacyada lagu qaado ku daadgureynaya askarta ku dhaawacantay qaraxaasi ma jiro ilaa imika wax war oo ka soo baxay kooxda fulisay weerarkan iyadoo inta badan dalka Yemen ay ka dhacaan iska horimaad joogto ah iyo qaraxyo ismiidaamin ah iyo kuwa miina dhulka lagu aaso kuwa oo la beegsado ciidamada wadankaasi Yemen ururka qodobadii wararka dibadda oo aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga S24 ee magaalada Muqdisho daawadayaal waa naga intaas waxa idin akhrinaya anigoo Ahmad Cabdi Maxamed Shaakir aan dibadu ku celiyo wariyahana ayaan Cabdulle Goore oo noo akhrineysay warkii caalamka aad baad mahadsantiin daawadayaal